ugu yaraan 50 qof ayaa ku geeriyootay ku dhawaad 100 kalena way ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari nuuca xamuulka kaasi oo saaka aroortii ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. isgoyskan oo ah bar control oo kulmisa gaadiidka ka yimaada wadooyinka warshadaha xoosh iyo wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa xilligii uu qarax ka dhacay goobtu waxay ahayd meel aad u mashquul badan waxaana dadka geeriyooday ay isugu jireen arday dad u socday shaqooyinkooda askar iyo muwaadiniin u dhashay waddanka Turkiga. waxyeelada ugu badan waxa ay soo gaartay dadka shacabka kuwaasi oo qaarkood saarnaa gaadiidka kala duwan waxaana sidoo kale goobta ku naf waayay arday wax ka baranaysay jaamacadda Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa tagay goobta waxaana warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish. waxaa ka dhacay Ex Control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska Ex Control Afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa 9 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ah waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan. muuqaalka isgoyska Ex Control Afgooye oo markii hore ahaa meel camiran ayaa iminka laga dheehan karaa burbur xoog leh iyo haraadiga gaadiidkii ku basbeelay qaraxa. dhaawacyada ugu badan ayaa la geeyay isbitaalada magaalada waxaana baraha bulshada lagu baahiyay baaqyada ku aadan in dadka qaar ay u baahan yihiin gurmad dhiig oo degdeg ah. agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa warbaahinta u sharaxay tirada dhaawacyada ee la geeyay isbitaalkaasi. dhaawacyada maanta la keenay qaar badan waxay u badnaayeen dhaawac fudud intii kale waan seexinay ilaa hadda waxaa noo jiifto tiro 35 laakiin dhaawac guud ahaan waxay ahaayeen 52 intii kale waa baxeen markii dhaawacyadooda fudud loo dhayay waxaan rajaynaynaa dhaawaca hadda noo jiifo isbitaalka kartidiisa caafimaad waa ka adag yahay inuu daaweeyo hawl fiican oo rabnaa inaan u qabanno bukaanadaasi oo dhibaatada weyn ay ku dhacday oo haddana u badan arday jaamacad dhiganayso maartay badidooda jaamacadda Banaadir ahayn arday ah oo darsi u socotay oo meesha dhibkaas ku qabsado qaraxaas qaarkoodna ay laadeen oo dhinteen marka ilaahay waxaan rajaynaynaa dhibabkaanito in ilaahay naga yareeyo. Umar Maxamuud Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ugu dambeyn booqday dhaawacyada la geeyay isbitaalka Madiina ayaa warbaahinta u sheegay in bukaanada xaaladooda caafimaad wax loo qaban waayo gudaha dalka ay u raadin doonaan daryeel caafimaad oo dibadda ah. waxaan halka ka ballan qaadaynaa maamulka gobolka Banaadir iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya nagoo iskaashanayna inaan dhaawacyada dhaqaatiirtu ay ka dayriyaan inaanay halka waxba uga qaban karin inaan u qaadno yani meelo halkan ka takhasusaad ama ka qalab badan oo dalka dibadiisa ah. waxaan rajaynaynaa ayagoo caafimaad qaba inay haddii aan qaadno dib inoogu soo noqdaan kuwa hadda bukaanka oo dhaqaatiirtu ay ku filayeen waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajaynaynaa inuu si degdeg ah uu noogu caafiyo. si kastaba haatee qaraxan ayaa imaanaya iyadoo 4 bilood ee u dambeysay aanay Muqdisho ka dhicin qaraxyada loo adeegsado gawaarida waxaana ammaanka magaalada uu ahaa mid soo hagaagayay. Abdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.